waxaan rabay inaan maanta haddana ka hadlo arrintii ka dhacday Gaaris dharaar dhaweyd oo cunugo yar oo maartay lagu dilay magaalada oo ay dileen nimanka ciidanka oo dawladda iyo nabadda sugayeen ay dileen oo gacan gal daran geysatay dilkiisa laakiin ka dambe waxaa dhacday dad baa damceen inay maartay arrintii ka dhacday magaalada inay ka qaataan fursad ay kiciyaan xamaasad kale oo la isku diraayo ummadda degan Gaaris degan way wala degnaan jirtay waa dad ummad maartay Kenyaan ah gaal iyo muslim ku nool Gaaris maxaa waaye wajigii Kenya oo ummad ilba ku nool oo waligood wala degnaayeen barkood hata meesha ku dhasheen oo haddana meel la oga soconin oo la damcay in maartay xamaasad la kiciyo oo la isku daro ummadda meesha degan qalalaasa laga kiciyo dadka xoolahooda la dhaco dadka barkood la dilo oo gacan loo geysto waxaan u baaqayaa ummadda Gaaris ku nool inay nabadgelyada sugaan nabadgelyo wax ka fiican ma leh nabadgelyada inay sugaan yani maartay iska ilaaliyaan inay ka qayb qaataan dulmi kale inay geystaan ayagana dadka maartay isku dayay arrintaas sayto oo xamaasada kicinayo oo dilka geystay darad ilaa shalay ilaa darad dibka wadeen waxaan leenahay arrintaas sayto ma ogolin madaxda gobolka daanahay waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas sayto ka baxaan dadka ninka dilay qabiil ma dilin nin shakhsi baa dilay oo dawladdu u shaqeynayay ayaa ku ila socdeen dawladdan waxay ballan qaaday inay nimanka la soo qabanayo wayna ku daba jiraan inay ninka maartay ninka dilka geystay in la soo qabto ilaa ku ila socdeen waqtiga ayada marka ma rabno inay haddana xamaasad kale la kiciyo dil kale uu ka dhaco magaalada marka waxaan ka codsanaynaa reer Gaaris sidaad ku nooleedeen nabadgelyada iyo fiicnida iyo wanaaga ummaddan iskula degneedeen inaad ku wala degnaataan oo maartay qalalaasa laga kiciyo magaalada